لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، waxaan door biday maanta inaynu ka nidhaahno mawduuca walaalkay tilmaamay, iyadoo laga yaabo markii hore wixii maskaxdayda ka guuxayay inay waxyaabo badan oo kala ahaayeen, laakiin nadwadii shalayta halkan ka dhacday inba waxay i dareensiisay malaa inaan wax ka idhaahdo mawduuc nooca ku saabsisan annadwa siyaasiya amis culamadu halka ku galaysay. waxaynu u baahanay inaynu tilmaamno macaalim iska guud oo laga yaabo inta badan inaad garanaysaan, laakiin aan jeclahay inaan dib idin xasuusiyo, waayo siyaasat lumma asiyaasa, inkastoo eraygu aada moodo wakhtiyadan dambe ama cusurtan dambe eray la nacay inuu eegyay oo kaanama siyaasa iyo siyaasiya waxaa markaad maqasho kaanama nifaaq iyo munaafaqnimo iyo wax la hadle laga hadlayo kale u eg tahay, laakiin waxaynu naqanaa siyaasat lumma inay tahay ricaaya shu-uuni innaas, ilaalin la ilaaliyo ummadda shu-uunteeda saasa yasuusu, yacni min hada alqabiil inay ka timi, dadka ilaaliya ummadda tanina inay dad gaara iska ahaayeen, oo xataa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo reer banu israa'iil كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي من بعده ولا نبي بعدي. النبي التلمامي عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل waxa siyaasadooda wadi jiray ama hogaankooda hayn jiray ama hagi jiray ummadda. siyaasaddu waa hagitaan, dad la hago, salaa wanaaga lagu hago iyo xagga khayrka qabta. waxaa hagi jiray buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam reer banu israa'iil ambiyo amase nebiyo, nebiyadaasi khayrkay dadka u hogaamin jireen. kullamaa halaka nebiyun khalafa nebiy, marka nebi uu geeriyoodaba nebi kale ilaahay soo diri jiray subxaana wa tacaala. walaa nebiya bacdi buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. waxaan leenahay siyaasat lumma waa qadiyadaasi ricaayada ku saabsan, ricaaya shu-uuni innaas aw shu-uuni lumma. markaynu ummadda hogaaminteed ka warramayno iyo riixitaan loo riixo xagga khayrka qabta iyo wanaag lagu hago, waxaa habboon marka hore in waxoogaa aynu ka nidhaahno malaa kooban caqabaadka ummadda haysta ee u baahan in laga hago markaasi ama loo toosiyo. cumuuman qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay kitaabka qur'aanka ah iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin waxyigii alla soo dejiyey ee loogu talagalay in lagu hago oo lagu hanuuniyo bini aadamka dhammaantii. innaga haddaba dhibtayna haysataa ma mushkilad ama ma dhibaato dadba qiyaada dhibaatadeed qura miya, ma dhibaato shacabba, ma dhibaato caalami aan gacanteenna ku jirinba? waxaanaynu u baahanay inuu hagnaa muxuu yahay? waxaad moodaa ummaddeennu inay isku dayday inay qof beddesho, dabeetana way beddeshay, waxbaa iska din waayey, way ku noqonno waynu bedelle. lixdanaadkii qaar baa la saaray, dabeetana waa la dhigay, waa laga quusto, waa la bedelay. kuwo kalaa la saaray, waa la bedelay. kuwo kalaa fuulay, waa la bedelay. ilaa hadda waa la bedelayaa. kullamaa bedelka la bedelabana waxaabaad moodaa ila alaswa uunba inay usii socoto, xagga hoose inay usii socoto. mushkiladayna haysataa markaa ma mushkila qiyaadiya faqad ba, ma mushkilad jamaaca ba? waa dhibaatadeedna waa noocma, caqabaadkayna hortaaga waa noocma. waxaan leenahay caqabaadkayna hortaagani waa dhowr caqabo. waxaan odhan karaa
caqaba caalamiya wayna hor taagantay oo shalayta in badan lagu celcelinayay dunida inay ku nool yihiin shayaaiin maakiri oo aan khayrka jeclayn dad badan oo danaystayaala caalamkiioo maanta noqday kubad yar oo meel kastaba dhowr saacadood lagu gaadhayo akhbaartiisu ay isku gaadho wakhti daqiiqada ka yar bath mubaashar ama tv-ye iyo wax caalamka ay ka dhawaaqayaan oo dunida halka u dambaysa waxaa ka dhaca secondkiiba uu halka kala gaadhayo adigoo gurigaaga iyo dadkaagaad ka timi min waraa'i sitaar laga ta'hiirinayo oo waxaa laga yaabaa ummad dhan oo soomaaliyeed inay b b c hagto waxaa laga yaabaa ummadda dhan ummadda daaya waxaa laga yaabaa magaalo adoo jooga magaalada gudaheeda waxaa ka dhacaya inay iyagu ku hagaan oo uu kaaga warramo aad tidhaha b b c baa maanta dhegaysta waxaa la yidhi sekadaa sii jeeda qolaa isku dishay waa meeshaad joogtay hadda ayaa lagaa hagaya oo lagu tusinaya caqaba caalamiya baa jirta aada u weyn oo ay ugu talagaleen dadka markaasi saytaradaasi ay gacantooda ku jirtaa inay caalamkan sii dumiyaan aan iyaga ahayn caalamka aan iyaga ahayn madxana buu ku jiraa ama taayir wareegayuu saarayo aan loo naxaynin kaasi waa caqabo jirta caqabaadka caalamiga ina haysta waxaa ka mid ah waxaynu dhaxallay waa isticmaar maanta bilaabmiya waxa kan maahe waa isticmaar aynu quruun ku soo jirnay waxaynu dhaxallay dacfi tiro badan oo dadkii muslimiinta markii hore haystay waxaynu dhaxallay cahdi listicmaar iyo dacfigu ka tegey waxaynu dhaxallay aqaafaadkii reer galbeed iyo aragtidoodii iyo waxoodii oo weli sidii inoogu dhex jira waa caqaba meesha taagan waxa kaloo ina haysta dhib labaad oo ina hor taagan dhibta labaad ee ina hor taagani waa dhib shacbiya waa dhib ummadda ka timi xaggeeda ummadda aynu rabno inaynu hagno ummadda aynu rabno inaynu hanuunino waa dhib iyada ka timi dhibtaasi ka timi kow waxaa ka mid ah aljahaala bikulli anwaaciha waa ummad aan xadaaro lahayn ee jahli u daboolay jahligaasi wuxuu ka haystaa dhinacyada oo dhan waa jahli aada u ballaadhan waa jahliga gaadhsiisan inaynu gaajo u baktinno iyadoo kalluunkeenna baddu ay soo tufto yani qof gaajo u baktinaya oo badda dhinac taagan oo haddana baddu kalluun ay soo tuurayso dabadda usoo tuurayso gaadhi kari waayey inuu kanuun cuno ama si uu u cuno garan kari laha xabad kalluuna si uu u qabsado samaysan kari laha waa jahli nolosha jawaanibteedao dhan inaga haysta nolosha la nool yahay jawaanibtay leeday oo dhan waa jahli inaga haysta oo aada u ballaadhan ha ku xisaabtamin beersentka yare waxbartay waa jiraa tiro yaroo waxbaratay laakiin markaad ummadda u eegto soomaali la yidhaahdo waxaad dareemaysaa inay yihiin 1% inaanay noqon karin haddaad badiso inaad tidhaahdo waa 2% inta wax qorqorta ummadda 2% ay wax qortaa waxaad garan kartaa dhibtu halka ay ka gaadhsiisantahay xataa mabda aynuugu yeedhayno ee rabna inaynu ku bedelnaa dhibtaas ka haysataa oo islaamka laftiisii aanay fahamsanayn in yar oo ay dhaxleen oo heritage ahaan ama dhaxaltooy ahaan ay u haystaan mooyaane caqabaad kale ayna haysta waxaa ka mida baynu odhan karnaa caqabaadka ayna haysta oo malaa jahliga la sii socda albadaawa waxaan odhan karo cadam taxadur reer magaalnimo la-aan reer magaalnimadu malaa waa eray sida xunna loo adeegsade maxaan ku tilmaamaa qiyam xadaariya baynan lahayn ama si kale haddaan u tilmaamo badwiga ninka badowga la yidhaahdo waxyaabaa lagu yaqaana waxa lagu yaqaano waxaa ka mid a waa waxyaabo aada u cajiib oo badowgu uu caan ku yahay oo caalamka oo dhan uu kaga gedisan yahay waxyaabaha badowga lagu yaqaano waxaa ka mid ah alfawda وعدم الانبضاء وعدم الانضباط أما الحرية المطلقة وضد كوكبعة ميل أن قانون كتيرين ميل بدون قانون أبي كوكبعة مركان لا قانون كمتير محان وجهه قانون كضدك إنه وضن ولاده سامح ماله كاين عدلا وسكدجا قال سياري سؤال كوفا في صدا
wixii agtiisa soo marana xoolo nooga dubu yidhaahdo looma soo dhawaado keligiiba halkaa jooga waxaan aad u dareemay waa anigoo xabsiyo meelo ka baxay baan baadiye tegay hawd wixii ugu horreeya aan dareemay wuxuu noqdaa bal caalamkan aan booliiska lahayn ee qaanuunka lahayn ee meel aad u socotay idinku caalam dhan oo kullu xurriya mutlaqa waagu markuu bariyo ninku xaggu doona u dhaqaajinaya xaggu doonana wuu kacaya waa qof ku taracrucay markaasi inuu xurriya mutlaqa haysto oo aan la qaydin waa taqaanin soomaalida oo haddaad tidhaahdo iminka markaynu halkan nimin waxyaabaaynu iska barannay baa jiro aan cidi inugu qasbin laakiin markaanu aragay dadkan xadaarada le aynu iskala dhaqanno maalan waxaa laga yaabaa warqadda inaad fara iska mariso weligaa inaad waddada ku turo inaad iska sido qiyam xadaari oo lagu baray inaad waxaan meelaha kaanu iska gaydin waxaa laga yaabaa gaadhiga sigaarka laguma cabo hadday ku qorantay inaad weligaa ku cabin laakiin markaad maqaaxida soomaalida tagto waad iska shidaysaa iyadoo ku qoran tahay laguma cabo waayo waxaad ogtahay inaad u timi umma fawdawiya uma aan nidaamka iyo waxaa jeclay markuu gaalka u gelayo sigaarka cabbi maayo waayo waxa ugu qoran boodha sigaarka laguma cabo qaanuunku ixtiraamaya laakiin markuu adiga kuu yimaado konton boodh haddaad ku qortay wuu cabaya sababta waxay tahay wuxuu ku ogiyey de inaa wada tihiin waar nagu cashuurin meesha baa laga yaaba inuu kugu yidhaahdo haddaad tidhaahdana war laaixadeennaa dhigaysa inaan meesha wax lagu cabbin idan waa ummad ku taracrucday ama ku kobocday xorriya mutlaqa xorriyada mutlaqa ahi waa bi'a fawdawiya waayo bii'ada noocaasi u kacdaa inta badan had iyo goor waa bii'o nolosha ay fududay marka dhan laga eego ay naadirtay alustaad maxamed qutb baa wuxuu yidhaahdaa bii'ada caalamulislaamigu inta badan uu ku nooliyay buu yidhi waa meel ay naadirtay qofku inuu gaajo u dhinta buu yidhi waa meel ay naadir tahay buu yidhi qofka in baraf dilo iyo qabow waa meel kulayle ah buu yidhi oo qofka aqalu tacaam baa ku filan yacni dhulka qabow waa inaad in badan shaqaysaa wax badan cuntaa laakiin markaad meel kulul joogto cunada in yar baa kaaga filan oo aqalu tacaam baa qofka ku filan waa meel buu leeyahay qofku markaasi inta badan ay isaga barteen intan yarna in la iska heli karo si kastaba ha lagu helaya shaxaad lagu heliyaa mid kale gurigiisa laga soo cunyaa intan yare beerka lagu toosinayana waa in la iska heli karo waa meel uu qofku dareemayo shalay wuu noolaa maantana wuu noolyahay waayaan mustaqbalka uga sii fikiraya berrina waad iska noolaanaysaa waayo berrita waxay la tahay shalay siday ahayd unde maadaama shalayba uu noolaa aanu waxaan u khitadayn jirin u fakeri jirin nidaam u baahnayn berritana muxuu uga fakerayaa sow sidii u noqon mayso sida daraaddeed waxaa la fududayd inay caynkaa noqoto bii'ada noocaasa waxaa lagu yaqaanaa cafawiya shadiida ama waxaa lagu yaqaanaa qasri nafs waa dad aan u adkaysan karin maamul wakti dheer u baahan hadduu daacadnimo kasta kugu ogyi oo wax ku yaro dhibaa wax yaro wadaanoo bil marka la wado odhanaya waar waxba ma soo wadaan bil dhan baa dadku daba socdo wax la hayaa may jirto waayo nafas tawiila ma leh khuta baciida ma leh waxaasi oo dhan way ku adagtay ninka soomaaliga ah waxaan idin tusinayaa maanta waxaa la igaata la sheegay imka haddaan idin wacdiyo oo idin idhahda ilaahay dartii yaa u bixinaya jeebka gacantaa gelinaysaan oo wada bixinaysaan haddaynu idhahno waryaadhan waxa la bixiyo maxaynu bixinaa haddaad tidhahdaan aan idhahdo 500 maanta dhiga waxaa laga yaabaa in badan oo soomaaliyeed inay 500 dhigto laakiin haddaan idhahdo 500 sanad baan idinku qaybinaya bishii 40 karawnaad soo bixinaysaa ama 20 karawne imisaa laazimaysaad u malaynaysaa inay bishii 20 karawna bixiso bishan 20 kan inaga wada bixiya bishan waa kusoo ridaysaa ta dambe dadkii 600 baa kusoo ridaya ta ku xigta 300 oo qof intaanay sanad gaadhin un baad arkaysaa un iyadoo ay kugu soo hadheen 10 qof dadkii markii hore kunka waayo nafas tawiila ma leh khuta baciidati lamada ma qaadi karo waa umma badawinimo ku taracrucday waa sifa reer baadiyanimadu leeday oo ah inuu fawdawi uu iskaga socdo arrintiisu ay ahaato uun maxay kula tahay hadda waxaana la fuliyo wixii aan hadda la fulinayna inaanay qiimo badan lahayn in laga sii fakaro waxaan leenahay waa ummad noocaasi u kobocday ama afkaarta noocaasi haysata badownimadu waxay kaloo leedahay haddaynu nidhi waxay leedahay fawda iyo cadam alindibaat waxay kaloo leedahay alcunf wasurca ittikhaadi alqaraar bay leedahay reer baadinimadu waxay kaloo leedahay ama badaawadaan sheegaya waa nolol qalqallafsaniya aad aday ku dhisan nolol qalqallafsanaan iyo aday ku dhisan adaygu dhanna faa'iidu ka leeyay dhanna xumuu ka leeyay booskiisa markuu dhaco faa'iiduu leeyay markuu qofku jahaatamay markuu caynka iyo adaygiisu faa'iiduu leeyay
laakiin طabciga iyo dhaqanka iyo akhlaaqiyadkiisa iyo waxa kan hadday qofka qallafsanaadaan waa yara dhibaato. badownimada waxaa ka mid ah cawaatiftu dadku markay kacaanuun ayuunbaa qaraarka la gaadhaa. waxaas baa la sheegay saas baa la yidhi macankaasaa maxaynu yaallaa imika haddaaba go-aan laga gaadhaya. lagama yaabo in daraasa la sameeyo, lagama yaabo in waxaan la baadho, lagama yaabo in wakti dheer la qaato. hadda ayaa la isku dayayaa wax walba in go-aan rasmiyo dhaqso ah laga gaadho. weliba waxaa laga yaabaa inta markaa wada joogtaan inay go-aanka gaadho magaca dadkay matalayaan oo dhanna ku qaataan. iminka reerahan waxaa laga yaabaa in lagu idhaho reer bacaynkaas ka soo baxday way adagtay reer intuu ballan qabsado inuu idhaaho maalintaasaa inoo shiro wax aqoontiisa iyo dadkiisa iyo waxa uu isugu yeedho inuunbaa meel iska helisino intay wax gaadha unbay magaca reerkun ku iclaaminaysaa unoo reerkuna dhib badan kama qabe uu iska aqbalaya. waxaa laga yaabaa inta halkan joogtay in yaroo isku reere hadday maanta intay halkan wax ku qabato ay dabeetana soo iclaamiso in dadkuna yidhahdaan reer hebel baa shiro oo caynkaasay gaadheen. waayo waa qaraaraadkeen oo dhan baa waxay iskaga salaysan yihiin surca in loo qaato. ummadda badwiga ah waxay kaloo caan ku tahy tacasub alqabali ayay aada caan ugu tahay. tacasubka qabaliga ahi qabiilku society-ga qabiilka u noole waa qaab ka mida nudumka ijtimaaciga ee loo noolaado asliyan, laakiin wuxuu leeyahay boos iyo meel ku cuntanta. waayo waa heer ka mida baynu odhan karnaa heerarka dadku uu u noolaado. waayo dadka badwiga ahi ninka baadiye jooga ee ahlu baadiye qabiil ka tirsani cashiiro ama qabiilo ama reer buu fardi ka mida yihi. reerkaasuu hiil iyo hooba siya ula taagan yihi. waxa reerkaas korkooda ana waa saaran yihi, waxa uu xuquuq leeyihina wuu leeyahy. marka loo eego reerkan muxuu ugu tiirsan yahy, marka loo eego waxay yidhaahdaan asraac min ajli albaqaagay sheegaan inuu noolaado reerku waa inu wada saxansadaa, la wada guuraa, wax laysku taraa. haddii xooluhu reerkan saasuu uga tirsan yihi. wuxuu kaloo uga tirsan yahy reerka wax allaaliya waxa ku soo kordhee duulimaad iyo weerar iyo wax kastaba waa inuu ka tirsanaadaa. ninka reer baadiye mambuudka laga dhigo ee aan qabiiladu markaasi ay fitnaysaa wuxuu ahaan jiray bay dhahaan fii cusuuri iljaahiliya luula qof damigiisu mustabaax yahay, ciddii doonta ay dili karto, ciddii doonta ay xoolihiisa dhici karto. waayo reer tabaniye qadiyadiisu ma jiro. markaa ninkani waa iska de waa ku yidhi waynan gumeed iyo waa gun iyo waxaan waa dad ama yaraaday ama qadiyadooda iyo xuquuqdooda cid tabaniday waayey dabeetana intii kale ay markaasi dul mareen oo ay cagta mariyeen. waxaa jiri jirtay markaynu eegno dadkaasi qaabkay u noolaan jireen maalan jaahiliyadii carbeed oo aan is idhaahdo mararka qaarkood qaab qabiilkood iyo qaab qabiilkeennu male aad bu isugu dhowaa. siday qaraaraadka sida degdega ugu gaari jireen, siday casabiyadooda iyo qabiilkooda u kacsanaa. mid ka mida baa gebiyey markaasuu wuxuu leeyahay qaatili lqawma ya khusaacu walaa yadkhilkum min qitaalihim fashalu alqawmu amhaalakum lahum shicrun fi ra'si laa yantashiruuna in qutiluu buu leeyay. yani waxa uu wax ku baysgaraynayaaba waariyaba timay leeyihin hadday dhintaan feedhan maayaane idina halumu buu leeyay dagaalama. waa qof waliba timuu leeya hadduu dhinto timu waa ka dhacayaanuune dagaalka haba yaraatee ha u gaagaabsanina buu leeya hore u gala. waxaa laga yaabaaba inay u arki jireen inuu reerku dagaal galaa oo wax iska dhaceeya inay tahay meelaha reerku uu magaca ku helo. reer weligii iska miskiin aan weligiiba dagaal gelin oo dadka iska nabadgeliyo inaan ahayn reer magacba soo heli kara. waxaynu garan karnaa noocay u noolaayeen. mid ka midabaa faras uu leeyahay oo yar buu gabay u tirinaya. markaasuu muxuu leeyahay ida almuhratu shaqraa wa adrak, yani gabay dheer intu soo tiriyo wuxuu leeyahay baha faraskayga yari ee fiicani hadduu gaadho dhabarkiisu mid la fuuli karo wax la fuulo noqdo fashaba ilaahu lxarba bayna alqabaa'ili buu leeyahy. ilaw reeraa dagaalka dhexdiid buu yidhi maalintii taasi qaan gaadho. wuxuu rajaynayaa in dagaal la dhacaan mar haddii bahashiisa yare ay qaan gaadho. wa awqad naaran baynahum, yani wuxuu tilmaamaya ilaahu dab ka shid dhexdooda aan damin oo xoog u ifa. casabiyadooda qabiilku waxay taagnayd kuwii uu tilmaamayey shaacirkoodu in ana lam ansur akhi wa huwa zaalimun cala alqawmi lam ansur akhi xiina yudlamu. wuxuu lahaa walaalkay buu yidhi haddaanan u hiilin marka uu wax dulminayo
ma berrita marka la dulminaya wax ka dhicinayaa buu leeyahy yani in adeerkay markuu wax dulminaya buu leeyahy haddaan dulmiga ugu hiilin waayo ma berri marka wixiisa la dhacaaban haddaan wax hiilinaya buu leeyahy maanta wayna raaca waa kii kale mid kale lahaa wamaa ana ilaa min ghuzayin gawat yani anu miyaan ka tirsanay reer hebel mooyaane buu lahaa reer hebel hadduu lumana waan la lumi un hadday jannada galaanna waan la galin weeyaan hadday naarta galaanna waan la geli doonaa waxaad ka garan kartaa ashcaarta jaahiliga markaad dib ugu noqoto shaacir jaahiliyabaa reerkoodu canaananaya reer kalena wuu ammaanaya reerka kale muxuu ku ammaanaya reerkooda se muxuu ku caayaya ammaanta reerka kale uu siinaya waxay tahay nin iyaga ka mid oo qaylinaya yimo hayaayay leh dabeetana may odhan buu yidhi war maxaad ka qaylinaysaa seeftay la dhinac carareen buu leeyahy idinkuna marka tolkiin soo qayliyaan baa odhanaysaan buu yidhi maxaa dhacay wuxuu ka xanaaqsanyay maxaa dhacayda in la isweydiiyo marka wuxuu leeyahy marka ay soo qayliyaan laa yasaluuna akhaahum xiina yandabuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaanu buu lahaa ma weydiiyaan buu yidhi reer hebel markuu walaalkood dagaalka ugu yeedho ma yidhaahdaan war waxaad sheegaysa maxaa dhacaya see wax yihiine way dhinac ordaan idinkuna tolkiin baa qaylinaya waa iska aamusantiina waa joogtaan yani waxay ahaayeen bulshadu badaawada loo yaqaano saddexdaas sifaynu odhan karnaa bay leeyihin inay ummad nidaam aan ogolayn yihiin oo nidaamka aada u neceb aan u hoggaansanayn waxooduna fawdo iskaga salaysan yihin inay yihiin bulsho had iyo goor lagu yaqaano qaraaraadkoodu si degdega inuu u go'o inay yihiin dad lagu yaqaano walaa acmaa inay siiyaan qabiilka ama casabiyada waa caqaba shacbiya idan waxay leenahay quwa caalamiya way jirtaa oo waddankeena iyo dadkeena iyo ummaddeena khalkhal gelinaysa waxaa kaloo jira baynu leenahay jahli shacabkeenna haysta waxaa kaloo jira baynu leenahay xadaaradeenno xadaaro badwiya oo reer baadinimo ku salaysan intaa waxaa raacdoo kale baynu leenahay min xayثu alqiyaada sayطaraة alcilmaaniyiina fi اlxukm dad cilmaaniyiina malaa cilmiba maahe waa caalamaaniyiin nisba ila alcaalam dad caalamaaniyiina caalamaanigu waa maxay waa dad diidan inay nolosha u hogaamiyaan ilaahay yani tawajuha siyaasi اlislaami waxa weeyaan in dadka ilaahay loo hogaamiyo waa tacbiid اlbashari lilahi subxaanaه wa tacaala bini aadamka o dhan in alle looga dhigo alle loo hogaamiyo weeyaan siyaasa alislaamiya wax kale sheegi mayso laakiin kooxdani waa koox rabta inay taa ka reebto oo ay yidhaahdaan cuquushayada iyo afkaartayadaanu ku maamulayna waa secularismkaynu maqli jirnay reer galbeedka caanka ku ahaa fi'adaa yar oo isticmaarku uu rabaystay oo isagu uu tababaray oo aada wax u baray oo uu baray in ay bulshada isaga gadaashi hogaamiyaan ayaa isagu markuu tegay hoggaankii qabtay yani waxaan odhan karaa isticmaarku intuu albaabka ka baxay ayuunbu daaqadda ka soo galay khalas waxa isgediyey wuxuunbuu ahaa ninkii meesha fadhiyey erayada aadka u cajiibka le aan dib u xasuusta waxaa ka mid ah lixdanadii ayaa waxaa la yidhahdaa nin soomaaliyeed oo kristan ah yani fi-a yaro soomaaliya jirto cadan iyo meelahan intay baadarigii gashay oo ingiriisku gaaleeyey oo markaa xoogaa uu soo baray oo christianity qaadatay ayaa baarlamaanka isu soo sharaxay soomaalidu markaasi waxaa la weydiiyey ninkan baarlamaanka saad u helaysaa baa la yidhi baarlamanka aduu nin kristanaaba tahe soomaalidu say kuu dooranayaan wuxuu yidhi tolkay diin taa ka yaro qiimo badan bay rumaysan yihin yani kristan iyo muslim maaha wax lagu kala dooranaya lagu kala saaraya arrin kalea jirta buu yidhi nin reer hebela baan ahay buu yidhi oo tolkayna reer hebel bay rumaysan yihin yani mashkilad maaha inaan kristan ahay inaan muslim ahay kaan ahay arrintii waxa weeyaan inaan reer hebel ahay mar haddaan reer hebel ahayna wuu imanaya ficlanna wuu yimi waxaan leenahay qadiyadda maxay ku salaysanayd dad cilmaaniyiin aan mabda'a aynu rabnay in laynagu hogaamiyo aynugu hogaaminayn baa caalam alislaam oo dhan xukumay waa iskaga mid kuwii magaca kristanka la baxaya kuwii magaca muslimka sitay waayo isku manhaj bay wateen isku qadiyad bay siteen isku mabda' bay ahaayeen isku diiwaan bay xambaarsanaayeen waxaaba laga yaabaa kii magaca kristanka watay isagu inuu dee caddaystay oo la garanayo oo lalahaa waa gaal hebel inkastoo la daba socday laakiin kan muslimna waa loo haystay waxaana isagaa dadka ku waday waxaan leenahay taasina waa caqabo kale oo meesha taalla waxa meesha yaal baynu markaa leenahay ummadda aynu rabno inaynu hogaamino oo aynu ku hogaamino islaamnimo caqabaadkaas baa haysta baynu leenahay caqabaddaa caalamiga ah iyo taa shacbiga ah taa shacbiga ama daakhiliga oo aynu ku sheegi karna inay tahay ummad jahli hayo
aynu ku sheegi karna inay tahay ummad aan xadaara lahayn ee ahlulbadwi ah aynu ku sheegi karna inay yihiin ummad ay u taliyaan dad cilmaaniyiin intaasoo mashkilo ayaa isugu biiray ummadda intaasoo mashkilo isugu biirtay sidee baynu u noolayn karnaa markaasi ama se u soo saari karnaa maxay tahay macaalim asiyaasa alislaamiya maxay tahay macaalimta aynu u baahanay inaynu ka intilaaqno oo ka bilowno si aynu ugu soo celinno islaamka dadkii si aynu manasat alxukm ama heerka maamul u keenno dad islaamiya si aynu uga dhigno nidaamka nidaam islaamiya si aynu u helno dad fiican oo muslimiina dhowr arrimoodba waa laabud markaa inaynu ka fakerno arrimaha laabudkaa inaynu ka fakerno waxaa ka mida baynu leenahay arrinta ku saabsan mafhuumka siyaasiga islaamiga inuu caddaado inuu waadix noqdo aada u cadiye siyaasadda islaamigii mafhuum caqiide ah bay ka bilaabantaa waxay ka bilaabantaa baynu odhan karnaa mawduuc ay culamada muslimiinta u yaqaaniin alwalaau walbaraa alwalaa walbaraa waa mafhuum caqadiya oo siyaasiya baan odhan karaa maxaan uga jeedaa qofka muslimka ah dadka badh waa shacab badhna waa qaada waa hogaamiye hogaamiye waa qof kastoo dadka xil u haya ka masaajidka xukuma ka jaaliyadda xukuma ka ururka yar xukuma ka waa wada hogaamiye waa dad hoggaan haya oo isku dayaya inay ummad hogaamiyaan dadna waa dad la hogaaminayo iyo qaabka wax loo hogaaminayo waa saddexdaa shay baynu u baahanay inaynu si fiican u ogaano qofka maxaa looga baahan yahay maxay tahay siyaasadda aynu ku tawjiihinayno qofka muslimka inuu yeesho waxa weeyaan inaynu weydiino su-aal ah qof kastoo muslim uu isweydiiyo man ana kumaanahay anigu mayna nebi aadan baanahay oo humanitarian baanahay oo dadka waxaan u ilaalinayaa xuquuqul bini aadamka calaa asaasi hada almunطalaq miyaan ka soconaya anigu ma nin madow baanahay oo xuquuqda dadka madow baan u dagaalamaya oo nin afrika ka yimo caynkana baan hoo dabeetana madowgaan raalli gelinaya anigu ma nin soomaaliya baanahay oo ummadda soomaaliyeed baan hagaajinaya oo qawmi baan hoo qawmiyaddaasaan ilaalinaya anigu ma nin qabiil ka dhashay baanahay oo nin reer hebela baanahay oo reer hebel iyo dantoodaan ilaalinaya oo iyaga ayaan wadaya manana kumaanahay waa inaynu barraa qofka muslimkii kuu yahay markaas baa caddaanaysa cidda uu hiilinayo iyo cidda uu ka hiilinayo cidda uu raacayo iyo cidda aanu raacaynin hiilka iyo raacistu xoog iyo xoolo qura la bixiyo maaha xataa waa naftaadu wararka qaar baa markaad heshaa naftaadu ay ku raaxaysanaysaa wararka qaar baa naftaadu markay heshay aad u nacaysa aad ka barooranaysaa kumaanahay waa inaynu weydiinaa qofka muslimka ah waa inaynu sheegnaa qofka muslimkii kuu yahay waxaan leenahay qofka muslimka ah waa qof rumaysan mabda'a universalism nationalism maaha waa universalism wuxuu rumaysan yahay waa mabda' caalamiya buu haystaa kuma xidhna midab kuma xidhna qowmiyad kuma xidhna gobol kuma xidhna dhul wuxuu ku xidhan yahay ideology caqiido mabda wuxuu rumaysan yahay buu ku xidhan yahay waa wax qof waliba dooran kara buu ku xidhan yahay inta kale ma dooran kartid ilaahay baa in aadam kaa dhigay ilaahay baa ama madow ama caddaan kaa dhigay ilaahay baa ama soomaali ama carab kaa dhigay ilaahay baa reer hebel ama reer hebel kaa dhigay doorashaba kuma lihid waxaan leenahay qofka mu'minkii waa inuu ahaadaa waxuu dooran karo waxuu dooran kara buu yihi dabeetana wuxuu yahay qof muslima qof muslima markuu yahay waxa u caddaanaysa yuu u hiilinayaa yuuse ka hiilinayaa siyaasaadkiisu xaggee ujeedaa asiyaasa alcaalamiya dunidu way is haysaa meel kasta waa la ysku hayaa soomaali qura maaha meel kasta waa la ysku hayaa caalamka mujtamac duwali wax la yidhaahda baa jira mujtamaca duwaligii qadaayaadkaasi caalamka ka socda mawaaqif buu ka leeyahy almujtamac almuslimi alcaalami mawaaqiftu ka leeyahy waa maxay
مواقفته كيالانيا وسياسة دي حاجة وصعته. إذا معالم السياسة الإسلامية وحويا بين لنا وغرين يفهمنه من أنا قفكو إنه قرطه مركز بقرنا يعيد أوهي لنا يعيد أنوهي لنا قفك مسلم كا إلهي بأوح القرآن كيس كلي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين في سورة المائدة. إلهي بأوحلي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إلهي وحلي وروحا إدين وليه وهيليه هو بيد كمضا وقرقار كينيا رنتي نيا هيل كينيا محبدي نيا كالقعل كينا بالي الله سبحانه وتعالى. إذا قضايات كاغو وقضايا الصراع بين الحق والباطل كلما حق لشيغو فسياستك معهم وقضايا مبدئية ورسوله إلهي رسولك سادهي لي هو بلدنا اعتاقنت إيوه والذين آمنوا كوا إيمانك لغا هلي وليبا كوا إيمانك لغا هلي با أصناف لغا سيدغي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكوا صفات كاله صلاة أوغا يا الزكاة بحنا يعني مسلم حق كوا أويا إلهي وحكوت المامية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أفرصوا حزبك مسلم قفك مسلم كوا حزبك حزب شيوعي ما من ديمقراطية ما من هرصعدة ما من بصاء حزبك كتر سنتي إلهي بأوح لي وحاده لنيسا أقرقار سواء الله يا رسول كيسا يا قوى مؤمنين تا انت أصبح انت إلهي حزب قرس كقد جيبا إلهي وحلي فإن حزب الله هم الغالبون إلهي حزب كيسا أقوى غالب كاه يا أيها الذين آمنوا با إلهي مركالي لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا واركوا إيمانك لغا هلا يوبا إلهي لي هكي لننا كوا أنت لا سارانين أما كوا دينتين كدكتي دالكيا جاسكيا waxa lagu ciyaaro ee ahlu kitaabka kamida iyo gaaladii kale idinka horeysayba wal kufar awliyaha ka dhiganina balay kooxaha ha u hiilinina wattaqullaha in kuntum mu'minin waxilana marka qofka muslimkii su'aashiisa koowaad ama siyaasadeena koowaad waxa weeyaan inaynu cadayno dadka muslimiinta iyay u hiilinayaan yeeyeen xagay ka tirsan yihiin khalalka ka ku jira waxana aad u xasuustaa من هبين دويد بوحة محاضرة جيدري أحمد أبو اللبن عالمك مسلم كي حقا دقن مركزو حسون نقلية لبا قول وآدو غريبة وجرايد كعالم كي قريه قولك كوادو حويان باكستان أي وحا كدعي دورشو ضدك كي قيب قال وحا كمدا أحزاب مسلمين كما هدلينا مسألة داين لقلا ما بنانتا يمسا ما بنانا مسألة سواء مسألة كله لكن waxaan ku tilmaamaya qaba inay banaan tahay hadana bal aqliyadkoodu siday u fakarayeen doorasha la sameeyay kuwii islaamiyiinta ahaa ee marka ayagu ku dhawaaqayay islaam baan u gargaarayna dhanbay mareen الجماعة الإسلامية iyo kuwaas ay hogaaminayaan kuwii u dhawaaqayay النظام الديمقراطية iyo nidaamada dimuqraasiga ku salaysan reer galbeedka iyo waxaas baan u gargaaraynaa ku dhawaaqayna dhanbay mareen qolo nin markaa dawadnimo lagu tuhmayay soo wadaan iyo mabdiisi iyo mashruucaadkiisi qolana waxay soo wadaan gabadh yar oo reer galbeeda oo Mareykan iyo meelaha ka timi oo afka soo casaysatay oo dabeetana wadayana mabdaas galbeedka ka yimi bulshadii waxa la weydiiyay istiftaag waa maxay bulshada waxa la weydiinaya markhaataan idin weydiinay kaayaga xaq u leh inuu dadka xukumaa bulshadii la weydiinaya sanadooq ikhtiraac macna kale ma leh waa dad bulshada inuu xakam ka dhiganay yiri oo ina kala xukumaya maxay nagu kala xukumaya war kaayaga xaq u leh bay leeyeen inuu xukunno wax bulshadu marka waxay leedahay dacidaas xaq u leh ugu ridaysa fawdkaraad ku ridaysa macnihiisu waxa weeyaan
حق له إن تحكمته وشهادة شهادتنا الإسلام كميل بك شكتاد خطرة شهادة الزور مرخات بينا له حزبي أنا كوكتين ضد خيامين أيو قيامها مركز يقول ردو مركز يقول ردو وننكي ما شافوله وحدبه آخر قيامك والله قبصنيات كمتي وحدبه كلجي معها ويواتقاني وانا اللي قرني حقه وحوضه ادانا عدك كنسيي معناه هدي waxa weeyaan adaa ka raaliha in dadka kala dulmiyo oo sideetan u siiyay qiyaama ilaahay adigu wax ka weydiinaya wuxuu gubay ninkaas iyo dhame way waa mowqifkaagi siyaasiga hayad istaagtay qofka muslimkii mowqif siyaasi oo cad waa inuu yeeshaa shahaadada wama yaktum ilaahay quraanka wuxuu inoogu tilmaamay qofka shahaadada qariya dambiga uu leeyahay sida uu xuntay قولة الزور با قرآن أي حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور با الله ينوت المامية انتوا وحكي كدقي النبي يسقط شيفا إنه صاقعي يسقط وقدقي شهادة الزور استفتاء عندك لو يديني يا مرخاتي وضد لي والحكم من النقضة وركايا جا قرله يا مدن ضدك حكمه كايا جا مبدأ في عن كايا جا عدالة وضع ضدك لو يديني استفتاء ويا هاي واحد المجتمع مسلم باكستان مجتمع مسلمة صحيح كما واحد قولي ستي بنازير بوتو وحنا قفصتي باكستان maxay ugu leysatay markhaatibay muslimiintii u fureen inay iyadu fiicantay hada bas dadka u furaya kamida al-ustaad Khaliil al-Hamidi rahimahullah ayaa markaas jariidatu al-Mukhtar buu ku qoray waxa la yiri war maxaa u khasaarteen foodkii سويدي دتك إسلاميين تعين كان كتاب يسونا كل واقعي إسلام شيء جاي أمد باكستان أمد مسلمين هاي سويدي كالسوني ده قبائل هدي دورش دعوة وناق يلا سنين عدقوا ناق مبدأ قالد وضا يلا سنين عدقوا ضد مسلمين مبدأ إسلامي وضا إن مسلمين تلا ضرر يا سويدي شيء محاو خسارتين سويدي وحيابا إنه خسارنا جوا وينا وحكم ده بيقولي جماعة التبليغ باب نزير بوتا وجور الديول انتبهوا إلى هذه القضية جماعة التبليغ ما تهمي وضد مسلمين وضد ربين إسلام كوها الجمان وضد دون يين نفط وظهران جولة أنت أصيو سميانا واركتين ودى سنة أي في سبيل الله وبحيا أنتوا سوريجو وعرق أردن صامر وداعية وحصاش وضدك إسلام كوير كم قف باركتين خمر عبية وخمر غيتشوتشية إمي ساركتين سوق مريوي صلاة دبر إمن سوما دارك تقف يدينتك وصدره حسنات كده اسكما هينو يعني مركا نقطة تلماميو وما تشيدا دورس عن دوريو لكن وحنو تشيدا مسلمكو وجهدي سياسي جينا أنا وعضين مفهوم الولاء والبراء بيهيدين وقفكو تاغيهي ومفهوم عقيدي يا مضن إن دوهي لسو يا مضن سينت كهي لسو وحرجيني محاضرة كصاب سنين ولا كان ومالبريتا قال دونه جزاه الله عنا خيرا وصف يعني إنه أقول بالله دون لكن أنا أقول حنبان رواينا كهضلو جانب كده سياسي جاه وهي ولا أقول جوانب بدني لكن وحين لنا مفهوم كسياسي جاه إسلامي يروح كوس ليسي يا مدن الله هيليو جماعة التبليغ بملايينها وحيقول الديبي ليين محي بنزير بوتو سببته محي مفهوم الولاء والبرابة في عقول المسلمين ولا واضح نقول هذين ربنا مجتمع كان إنه إسلام كهجنه هذين ربنا مستقبل إسلامي إنه صار وإنه عضينا مفاهيم تاع وين إسلامي أباهن إنه عضاته سيد درادد تصالح لبعض وساقة أحمد أبو اللبن حفظه الله وحليه هي تركيا أيانا سنادوغ دي فوت كليم حزب الرفاه أو هو قامين أيوه نجم الدين أربكان أو بروفيسور كمعروف في عالم الغرب هو بروفيسور معروف كويه هي فنجيسة عالم كاسي مسلم كيو هو قامين أيوه أو كل واقع الخلافة الراشدة بانو مدكو علينا وحنا نسوع علينا الخلافة دي دتك المسلمين تاكلون طيب إيا أحزابتي علمانيين تالها وحن ربنا الندم الغربية الرقلبات أيا اللي يري صنادوق الفوت بالله دقا يا وصنادوق الاختراع وكاسو دتك اللي ويدي سؤال شي باتمي يا حق لينو ماشي معموله دتكي كوري دي فودتك وحا كمدها جماعة كمدة جماعات إسلامية وتيار النور السياه تيار كاسي وكوح كمدة كوحة إسلامية عالم وينه مسلم يقدم بيان عالم كي وقت تاتور كي النولا
وعالم runtii diinta islaamiga aad ugu soo halgamay wax weynna u soo qabtay waqtigii culimada la laayay ee la cadaadiyay ee inta la soo qabtay Turkiga oo dhan waxay caalim lahayd inta meel la isugu keenay buu madaxa ka wada gooyay mar qura in yar ba ka firdhatay oo sheekh islaamkii Turkiga markaas ay kamid yihiin Mustafa Sabri ninkii la oran jiray Masar degay Falastiin iyo Masar iyo meelaha waxoogaa yar oo firdhaday mooyaane waxay Turkiga caalim lahayd intuu qabtay Kamal Ataturk buu madaxa ka jaray dabeetana siyaasadiisii cilmaaniga ahayd buu keenay waa kii wadankii khilaafadii bedelay jamhuuriyadu bedelay nidaamkii oo dhan bedelay haluma dabeetana caalimka kani wuxuu isku dayay dadka caqiidadii iyo waxoodii iyo mabaadi'dii ba ka fasaaday inuu islaamka ku celiyo jamaaca saaxadii siyaasiga ahaydna way xidhantay marka juhuudiisu umay badnayn fi saaxa siyaasiya jamaaca islaamiya jirto isaga ku taasurtay oo ilaa hadda nool waa jamaaca islaamiya oo degan oo islaamka wada waxa la leeyahay markii sanaaduuq iqtiraac la yimi gartay ninka leh waxaan ima banaanay iskaga tagayaan waxba ku ridin kaasi bal meel isagoo iska joogo waa qoladii iyagu ku socotay sanaaduuq iqtiraac inay wax ku ridayso ayaa ku riday markaasay ugu rideenayo Sulaymaan Dimriyal ninkan meesha haysta cilmaaniga waa cilmaaniyada caalamka islaamiga waa weyn macruufka abu kamidi ayaa ugu rideen meesha marka maxay yaala waxa yaala mafhuum alwalaa'i walbaraa baan caday waxaan meesha oolin السياسة الإسلامية مفهوم كده وامحي وتنشئة المسلم المنفصل عن المشركين اللي هلا مسلم شعوريا عقيديا مبدئيا منفصل كبحثا قال كبحثا ولذلك بقى النبي يقول عليه أنا بريء من أقام بين الظهراني المشركين أنا بريء بقى كاهي من النبي يقول عليه المشركين تدحدوا هذا نك الدجا يعني المفاصلة ده واحد لقارتيني حتى هدي قاري كرتاء الهجرة إنه يقاردو أو قفك مسلم كبريء كهذا إلهي بقول عليه لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا لا بد من زيالة بين المشركين والكفر والله دي غير مكاه هيد بقى إلهي وحليه لو تزيلوا محي لو تزيلوا نبي عليه الصلاة والسلام الصحابة دي بس ودوا شيء وساعة مرتين وتلود دي صلح الحديبية مسلمين مستضعفين كشري مكة وأنا يقرنا إن عندك مسلمين تي دبتنا إلهي وحليه هداي كبح لهاين هداي كلاسيب من لهاين قال دي يا مسلمكم إلهي وحليه سبحانه وتعالى لعذبنا الذين كفروا وأنه عذاب إلهي بكوي قالين لكن وحال لقد حفتين كري لا يكوي كلا كده حجرة وحين أوبا هني قفك مسلم كي قضايات كي سينو فهمه وحين لأن معالم السياسة الإسلامية كو وحي كوسا ليسانت مفهوم الولاء والبراء وحكوسا ليسي يو قفك مسلم كي أوهي لنيا وإنه النقضين أوهي لنيا قفك اسطوى مسلمة في أنحاء العالم ماشي للضربة هالغد بيه شيشان بوسني ماشي الدونها تشوقه في الصومال أيما قف مسلم ومبدأ إسلامي الربيسا ولا إله يا رسول كيسانو قرقارية أيوهي لنيا إذا واقرتين المعالم السياسية الأولى النقطة دي كوات وأهمن أنا مسلم هوية ديو أيضا تتيجيو وحا أنسيتاي إيه علامات ضاهي باصبار كأنسيتاي أما الجنسية ده أنسيتاي ما ها الصومالي ما ها قومي ما ها أفريكان ما ها وحصدا ما هو مسلم إذا ماشى مسلم يعد كلا يسكوها استانا مع المسلمين ماشى دور شيء إسلامي غير كذا يشوفان أنا مع المسلمين وحنا هي جانب كإسلامي جا كتاجا ويضدك صالحين تي حق هرمت تجي كران محاكا دقي ضدك صالحين تي نيدتك هجاميان باوقف عن ومضي مسلمين تهري وحى هجامين يدتي مسلم جو فضل بدنا أبي بكر عمر رجع دبل جرين به هجاميني لكن وحى ماشى كان محوها مفهوم كي الرميسنايين دتي مسلمين تها وحلنا مركب السياسة العالمية كلا وحلقية بمفاهيم حتى إسلامي حد إن يجارسين تي مشرك يا أهل الكتاب كلا دويسنيو وفي سورة الروم وحتى قال إن قصة يكوسي ودرتي إن بيرشيا يا إستيلين محي رومانسك دبي تنوى أبي بكر كو خماربا ما وكو رهني كوسميي إنك قال الرهن كو ضدكتين قال هذا صابت النساء قال هذا صابت النساء وده دح يلا ما قالوا لكن لما قال قال marka ahlu kitaab sheeganayna xagga diinta u dhawaayeen qolana dabka caabudi jireen mushrikiintii waxay raacsiisay kuwa dabka caabudi jiray abi bakar muslim rasmiya ma hayo wuxuu raacsiisay hatta kuwa ka soo yara dhadhaw maxay ahlu kitaabka ah marka ilaahay quraan soo dajiyay uu leeyahay ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa min ba'd ghalabihim sayaghlabun waxaan leenay ilaahay wuxuu leeyahay ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin manana yaanu heelinaya ilaahay baa wuxuu ku leeyahay ittaqullaha وكونوا مع الصادقين وهرا لك عبصدا الراعة
كوا رنت شيغيا الصادقين مع الله مع أنفسهم مع المجتمع في كل شيء كوا الصادقين كوا الراعب إلهي سبحانه وتعالى waxaad ka garan kartaa markaas waa mawaaqifta ay kala taagnaayeen munaafiqiintu iyo ansaartii baad garan doontaa munaafiqiintu waxay u hiilinayeen yahuudi iyo nasaare iyo baliya baas bay u hiilinayeen laakiin ansaartii markay qadiyadu isa soo gaadhay muslim iyo xaliifkiisii sacd ibn mucaad raximahu llah waradia allahu canhu markii la yidhi reer banu qurayda maxaad ku xukumi reer banu qurayda waxay ay sameeyeen khiyaana cudma dadkii muslimiintii bay dagaalkii kaga baxeen dhabarjabin bay ku sameeyeen ciidamadii kale wixii bay soo raaceen laakiin markuu mowqifku yimi islaam iyo hayru islaami reer banu qurayda waxay xulafo wada ahaayeen sacd ibnu mucaad qabiilkiisay xaliif wada ahaayeen heshiis gaashaanbuur baa la isku ahaa waagii hore wax la iska wada difaaco islaamkaa yimo qabiilkanina wuu islaamay kana yahuudinimadiisiiba kusii hadhay markii dambe ee qolada qabiilkan uu islaamay yahuudi waxay ku raacday xaggii xilfiga iyo siyaasadda inay muslimiinta taageerto qolada muslimiinta ah bay raacday laakiin niman mushrikiina iyo munaafiqiin iyo waxba isu tagayo yahuud siday u gilgilayeen kolba wax ugu akhrinayeen bay safkii muslimka ka soo gooyeen oo yidhaahdeen axzaab baa soo ururtay caalamka oo dhan baa markaa muslimka isugu tegey waayo caalamkii waagaa joogay dee wuxuu ka koobnaa maxay quraysh oo markaa qiyaadadii weynayd lahayd bani khatafaan iyo wixii daba socday yahuud iyo waxay caga ku wateen waa ghaswat alaxzaabka siirada ku maqashaan axzaab oo dhan baa isu tagtay waxa la isugu tegayeen muslimka la dabar gooyo dabeetana waa tii cunanqabad bil madiine lagu wareegsanaa ghaswat alkhandaq waa tay dhacaysay waktigaasi oo nebigu kula heshiiyey qoladan inaanay dhabarjabin ku samaynin reer banu qurayda oo madiine in la wada difaacdo ayaa waaxid yahuudiya oo xuyay ibn akhtab iyo waxba intay usoo galeen usoo dusay oo barnaamijkii baabiiyey yahuudi waxay aqbashay intay ballankii dumisay inay muslimiinta dhabarjabin ku samayso ilaahay baa jebiyey axzaabtii markay jebiyeen muslimiintu is yidhaahdeen fadhiistana waxyaa soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu la leeyahay hubkii maanan dhiginayna keeno reer banu qurayda lagu soo duulay reer banu qurayda duulimaadkoodii markuu yimay muddo la hayayna inxisaar baa waa la go'doomiyey go'doon dabadeedna waxay aqbaleen xakam waxay yidhaahdeen xisaarkan ah nalaga qaado waananu isdhiibaynaa laakiin hana xukumo bay yidhahdeen sacd ibnu mucaad hana xukumo sacd ibnu mucaad waa ninka isku gaashaanbuurta ahayna qabiil kale odaygiisi iyo dee qabiilka o dhan wadaadka odayga isugu wada ahaa waa caaqilkii reerka waxay ka rajaynayaan dee caaqilka mar haddii xilfi wadaag horoo badan la lahaa waayo waxay ogyihiin mawaaqif hore uu sameeyey cabdillaahi ibnu ubayigii munaafaqa ahaa oo isagu xulafadiisii waa kii nebiga siduu nafta isugu keenayey ka sii daayey dabeetana waxay is idhahdeen dee kana cabdillaahiba kooxihiisii sii daayey ninkana wuu idin sii dayn sacd ibnu mucaad laakiin oo dhaawaca oo masaajidka yaalla oo ku ducaysanaya ilaahay ow haydilin shahaado ilaahay weydiistay inuu ilaahay shahaado ku arsaaqo laakiin wuxuu leeyahay ilaahay ow haddana aanay naftu iga bixin intaan reer banu qurayda ishaydu ka doogsan qadiyadda reer banu qurayda meesha ku dhammaata aanan ogaan horteed ilaahay ow haydilin buu ku ducaysanaya iyana waxay is idhahdeen dee ninkii baa isku koox ahaydeene sacd ibnu mucaad hana xukumo bay idhaahdeen nebigu wuxuu yidhi waan ogolay sacd ibnu mucaad baa idin xukumaya isdhiiba waa isdhiibeen sacad baa loo yeedhay dabeer baa lagu soo qaado waa la keenay waxaa lagu keenay baa la yidhi nebiga iyo muslimiinta iyo kooxdan wixii aad ku xukuntay raalli ku yihiin xukun dee waataa garanaysaan xukunku ku xukumay isagoo leh sacd ibnu mucaad maanta ma jooga buu lahaa lawmatullaahi inuu ilaahay dartii cid xanaantiyo waxaasi inuu uga cabsado nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu xukumay waa kii lahaa waxaad ku xukuntay wax ilaahay min fawqi sabci samaawaat kaga xukumay waxaan leenahay waxa caddaatay ninku cidduu ka tirsan yahay isku gaashaanbuur bay ahayn isku cid bay laakiin waxa u caddaatay man huwa sida daraaddeed qur'aanku wuxuu ina baraya faman yakfur bitaaguut wayu'min billaah waa mufaasala laga soo baxayo can alkufri dhammaantii والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله waxaa ilaahay inoo tilmaamaya qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahim wاladiina macah id qaaluu inaa bura'aau minkum nebi ibraahim iyo kooxdiisii bay idinku sugantay baa la yidhi ku dayasho halkee baynu kaga dayanaynaa nebi ibraahim iyo kooxdiisi markay yidhaahdeen baa ilaahay leeyahy tolkooda ay ku yidhaahdeen beri baanu idinka nahay idinka iyo waxaa caabudaysaanba colaad baa inoo dhaxayn doonta
xataa tu'minuu biاllahi waxdah xidhiidhkeenu kaamu ku dhisma ma jecli inaan walaalkay mawduuciisa kasii buhabuheeyo waayo walaalkeen baa inoo caddayn doona laakiin waxaan anigu ku dhaafaya mawqifka odhanaya mafhuumi siyaasa alislaamiya wuxuu ka bilaabmaa mafhuumi alwalaa'i waalbaraa oo mafhuum caqadiya caqiide ku saabsana oo ah inuu qofku muslimkii fahmo manana ثانيا waxaan leenahay mas'alaة الqiyaada baa timi mas'alaة الqiyaada oo ah hogaamintii shacabkii wuu fahmay ciddii u gargaarayo laakiin shacabku wuxuu u baahan yahay qiyaada maamul iyo hogaamin wuxuu kaloo u baahan yahay jamaaca waa laba qadiyadood oo u baahan iyaguna inay waadix qofka muslimkaa caqligiisa ku ahaadaan haddii qofkii uu cad yahay mafhuumkuu rumaysan yahay waa in la ururiyaa dee dadka muslimiinta waa inay organisation ahaadaan waa inay dad urursan yihin waa in dad hiilyahoo ka dhexeeya yihin waa in dad xidhiidh iyo maamul ka dhexeeya yihin waa inay dad wax wadaaga yihin walidalik baa waxaa taqaanin ahlu الsunna waاljamaca waa musطalax ay culamada muslimiinta ku tilmaamaan dadka ugu fiican muslimiinta ama dadka haysta طريقي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أهل السنة بالغ شاقي سنة محمد عليه الصلاة والسلام بين رأسيسين كو وحكى الله لغو شاقين يين أهل الجماعة مفهوم كسياسي جاي نوبة هنا ينا يمدى إنه فهمتا وين نقضى مفهوم كاين يمدى مسلم كي مدهات إنه يمدى مسلم كي ولا صعطه إنه يمدى مسلم كي وحوال قبطه سيدرادد بالنبي عليه الصلاة والسلام حديث دي سوحي نقول المامية مفهوم الجماعة إنه دتك مسلمين تسكيين كمثل الجسد الواحد سيدا شر قرى أو شركة قيب كمدي هداي عبطبا ليدي انتي سكالور دمينة سوچيت يورور بيو سوچيت شركو قيمة وحو كله مركو ودا شيرو لكن مركو كلي كلي قيمة ماله يعني إل هدي هالك الله دغو لا تنفع وحبا ما أركيسو ودنا هدي هالك الله دغانا waxba ma tarayo calool haddii halkaa la dhigay iyo keliyana waxba ma tarayaan laakiin marka la isku rakibo ay qof isku yihiin markaas bay qiimo leeyihin markaas bay ishu qiimo leeday markaas bay calooshu qiimo leeday markaasuu wadnuhu qiimo leeyay markaasay fartu qiimo leeday laabudda mafhuumka dadka muslimiinta ah waa almafaahiim siyaasiya siyaasadda dadku wax kale u haystaan laakiin waxaan jeclay bal sida aniga igu muuqata inaan idin tilmaamo مفهومك سياسي كانوا باهنا إنه مجتمع فهما وحويا ما كربنا قف صالح وأنتوا عبادة يستجد بدو قالوا هل ككور دي مربنا وصالح وعبادة سنية لكن إنه مال مدو كلي قالوا وحنا ما أنفعس وحلا جاب باهيا إنه هذا مع الأمة الإسلامية من مدى ومدى مسلم كائنه الدريمة حتى أمريكا علاد دشرته علي بن أبي طالب بخوارج محوك الشيخية كويلة سعودي إخواننا بغوا علينا أبو لها إخواننا بغوا علينا وحين لنا إسلام كوحينا بريا سيستم كاسئة إنه يدبلشن قلنا أمد مركزة حتى عبادات كينا الشعائر التعبدية بالله قد واحد جماعة كسليسا وحلينا بري محي عبادة جماعة صلاة بالله يريد كذا لكن وحلينا مركز الجماعة طيبة كخير بدنتي كلية وحي كخير بدنتي محي مركز الجماعة ضطي وحلينا بري إن aynu reebno wax allaaliya waxa jamaacada xumaynaya ha iscaayina ha ismaagina ha isu dhabar jeedinina ha isdulminina waxaan oo dhami jamaacada xumaynayaan si jamaacadu ay saliim u noqoto ayaa la yidhi waxaasoo dhan joojiya waxaa layna baray jamaacadu weliba inay ahaato jamaaca munadama jirta ummadda islaamiga maaha umma mubactara idan waxay leenahay dhibaatooyinka ina haysta hadday ka mid tahay bulshadaynu ku barbaarno fawdawiyiin oo nidaamka aqoon caynkan waxaynu u baahanay fardigeena muslimka inaynu ku barbaarino qof idaariyo wax maamuli karo fakarayo garanaya inuu noqdo sida daraadeed ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam goob walba muslimiinta waxay hayeen goobo munadama yani tacaabirta cajiibka waxa ka mid ah inuu saxaabi yidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka wuxuu noo safi jiray buu leeyahay sida uu salaada noo safo التعبير كوفيرس سيدا وصلاة ناصفة يدقالك الناصف الشري يعني لابد من صفوف لابد من أمة منظمة
ummad maamul iyo nidaam leh waa inay jirtaa. walidaalika waxaan leenahay salaadaheenni cibaadadeenni soonkeenni waxaa laga dhigay ummaddu inay wakti qura wada yeelato. xajkeenni waxaa laga dhigay inay ummaddu wakti qura isu wada timaado. zakada aadaab ijtimaaciya baa laynoo sameeyey. waxaasoo dhammi waxay ku tusinayaan inaynu u baahannay caqliyo jamaaceed inaynu dadka ku abuurno. caqliyo jamaaceedna abuurmi mayso caqliya tandiimiya inaynu samayno mooyaane. caqliyad maamul iyo nidaam aaminsan, caqliyad xerownimo ahi waxba ma tarto. waxay tartaa inay saxdo mafaahiim qayb ka mid oo deris la dhigaa. laakiin waxaynu u baahannay mafhuum yaroo hadda xaraki iyo quriya waxaa maaha waxaan sheegaya. waa ummaddu inay mid noqoto, inay ballaadhnaato, inay ku dadaasho, inta ay sii weynaan kartaba inay sii weynaato, inay ishaysato. waxaa laynaga reebay markaasi asbaabta jamaacada kala tuuraysa dhammaanteed oo dhan. waxaan u malaynayaa waktigu inuu cidhiidh iska yihi, marka waxaan jeclay inaan soo koobkoobo. qadiyadda saddexaad aan isaga gudbo. waxaynu u baahanay qiyaada. qiyaada markay dadku maqlaan caqligooda waxaa kusoo degdega madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taasoo qura qiyaadadu maaha. alqiyaada fii kulli mustawayaatiha baynu rabnaa. waar gurigu qiyaadu u baahan yahay. guriga dumistiisa waxa badiya qiyaada xakiima marka la waayo. ninka iyo gabadhan laysdhinac ceryaya iyo dagaalkan iyo waxaan la leeyahay xuquuq baa loo doodayayo. war dadka muslimiinta xaq qura ilayno xaqa ilaahay dejiyaa loo dooda. ma jirto ra'yi la yidhahdo anigu xaqa dumarkaan u dooda iyo ra'yi yidhahdo anigu xaqa raggaan u dooda. waa ragga iyo dumarkuba waa muslim. xaqa muslimku qofka muslimkiina u dooda, ama gabadh ha ahaado ama nin ha ahaado. ilaahay baa mid walba xuquuqu xadeeyey. xuquuqda muslimkaa dhammaantood loo doona. saf ragna kuma jirno xuquuqu dumarka la sheegayo xuquuqu ragga la sheeg waxaasi waa galbeedka waxa ka yimi. dadis haystay ma ahayn dadka muslimiinta oo rag iyo dumar u kala safnaayo oo laba qolo xuquuq kuwani way haystaan oo way isgumaysteen. dabeetana xuquuqda xoog baa lagu kala dhacsaday. nidaamka reer galbeed ee dimuqraadigan iyo waxa kan iyo dawladdan doorashada ku salaysan iyo waxa kan waxa qasbay niqaabaadkan iyo cumaashan iyo ururadan yaryar iyo waxaanoo dawladdu hadday waacato dad gilgiliyaa jooga, ururo xuquuqdooda ilaashanayaa jooga. laakiin inaga xuquuqda ilaahay baa ilaaliyo waa tahay yidhi. uma baahnid in loo loolame waxa loo baahanya in qofka la siiyo un xaqu lahaa. waxay leenahay marka qiyaadadii baa xumaatay. hadday tahay mustawa albayt guriga, hadday tahay mustawa almadrasa iskuulka iyo malcaamadda, hadday tahay fi mustawa almasaajid masaajidka iyo saa loo maamulayo, hadday tahay fi mustawa aljaaliya, hadday tahay fi mustawa yani alxaraka. alqiyaada ducfi aada u weyn baa ku jira. qiyaadada islaamigii waa ahlulfadliga in la qadimo. dadkii muslimiintii hore waxaa maamuli jiray cidda cilmiga leh, abubakar iyo cumar iyo, laakiin wadaadda may ahayn. yani markaynu cilmiga lehna niman inta kitaaba soo akhristeen un dabeetana kitaaba yaqaana may ahayn. niman nolosha oo dhan yaqaana bay ahaayeen. niman nolosha oo dhan yaqaana ayay ahaayeen. qiyaadadu mutatallabaad tiro badan bay u baahantahy. waxaynu u baahanay macaalimteena siyaasigii inay ku salaysan yihiin inaynu isu diyaarino inaynu abuuri karno soo saari karno qiyaadaadkii fi mustawa alcaalam alislaami hogaamin kari lahaa. inaynu u diyaar garowno qiyaadaadkii guri hogaamin lahaa, madrasad, masaajid, urur hogaamin lahaa saynu usoo saari karno. qiyaadadu cilmigoo qura maaha, waayo iimaankoo qurana maaha, diintoo qurana maaha. wax badan bay u baahantay. abi dar alghifaari radia allahu canhu saxaabi buu ahaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku sifaynayo inuu yahay asdaqu lahja. saxaabada ninka ugu hadalka cadcadle inuu ka mid ahaa. saxaabi buu ahaa ka mida min asaabiqiin alawaliin, raggii ugu horreeyay ee islaamo ka mid ahaa. haddana abi dar wuxuu codsaday in maamulka wax looga dhiibo. alaa tastacmilnii ya rasuula allahi buu leeyay. shaqooyinkan aad bixinaysa ilahay rasuulkiisiyo madanna maamulka wax igaga dartid. wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abadar, ya aba dar inaka mra'un daciif. inaka mra'un daciif. abadarra waxaa tahay qof daciifa. ducfiga abidar xagguu ku jiray? ma iimaankaa daciifa? kala wallah. abadar wuxuu ahaa mu'min mu'miniintii ugu horeysay ka mid a. ma caqiidadaa ducfi kaga jiray? kala wallah. wuxuu ahaa qof mu'min oo caqiido saxiixa sida. ma islaamkoo dacfi kaga jiray? may.
waxaanu wadanin mutatallabaat ay u baahan tahay qofka qaa'idkii uu u baahan yahay sidaa daraaddeed buu nebigu ku leeyay isagoo saxaabiyo cilmi loo iimaan loo kana ayuu ku yidhi daciif idan waxaa leeyahy war wadaadnimo ku heli maysaan maamul wadaadaanune wadaadada meesha ha loo dhiibo kuma dhacayso waxaynu u baahanay qiyaada xakiima qiyaadanimo cid cuntanta صaxiix iimaanka iyo diinta iyo ammaanadu waa ka mid min shuruud alqiyaada bay ku jiraan ugu horeeya mas-uuliyaadka waxa koowaada lagu qaataa bay ku jiraan waayo jibriil ilaahay markuu waxyiga u doonanayay muxuu ku tilmaamay ii sheega fii suurati alkawthar maxaa ilahay yidhi muطaacin hama amiin jibriil mansilada la siiye la yidhi waxyiguu mas-uul ka noqonaya shaqadaas u qabanaya brofessionka waxa koowaade lagu siiyey waxa la yidhi waxa weeyaan maxay waa amiin saaxibu amaana nebi wala la soo diraa muxuu talkii ku lahaa inii lakum naasixun amiin naasix amiin ammaana bay sheeganayeen inantii yarayday doonaysay nebi muuse in shaqo loo dhiiba maxay lahayd ina khayra man istaajart alqawiy alamiin ammaana bay tilmaamaysay cifriitun min aljinni muxuu lahaa markuu lahaa anaa soo qaadaya carshigii balqis mid baa yidhi anaa keenaya intaanad meesha ka kicin cifriit min aljinni baa yidhi anaa keenaya muxuu jinku ku dacwoonaya u shaqada ku doonayay mu'ahilaadku watay shahaadaadku watay maxaa ka mid ahaa wa inii calayhi laqawiyun amiin buu lahaa xoog badni iyo ammaanaba waan leeyahy alammaana waa min addiin waatuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam qiyaamuhu dhici maayo ilaa iyo maxay xataa dayicat ilammaana ammaanadu marka ay dayacanto mooyaane goormay ammaanadu dayacantay marka loo tiiriyo buu nebigu yidhi idaa usida alamru ilaa hayri ahlih ammaanadu waxay dayacantay marka maamulka loo dhiibo cid aan u cuntamin alamaana waa shardi inkastoo soomaalidu maahmaahaan ka maqlay baa waxaa ka mid ah ninkay adhiga kala quustaan bay geela u dirtaan baa la yidhi ilmahay adhiga markuu kasii daayo la yidhaha geel ha lagu daro geelii baana labada ku qaalisanaa agtooda kay dhiiji kala quusataa bay tidhaha wasiira laga dhigo kay daraad wasiirka kala quusatay berrinta madaxweynaha u dooratay iyo wasiirnimada waa shaakiladay hawdka kala timi ee ahaa adhiga kaka adkaan kari waaya geela ha raacday un weeyaan alamaana qadiya bay ahayd macruufa oo qofka mu'minkii uu ku xisaabtamo oo ah qofku inaanu wax qaban karin in ammaanadiisa la hubiyo mooyaane 40kii ninkii la ogaaday inuu khaayimka ahaa ee 50kii la ogaaday inuu khaayin ahaa ee 60aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ee 70aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ee 80aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ayaa 90aadkii haddana loo dhiibaya ma haada dadku ma maskaxda ka tirsan maya almafaahiim الsiyaasiya almacaalim الsiyaasiya alislaamiya ayaa gaa'iba cinda alumma ayaan jooginba dadkaan garanaynba cidday dooran lahaayeen dadkaan garanaynba cidda wax loo dhiibayo waa inaan gartaa intaanan sanduuq اlikhtiraac wax ku ridin sanduuqa wax lagu foodeeyo intaan la odhan dimuqraadiyad way foodee kusoo rid waa inaan gartaa waxa wax lagu doorto criteriyu waa inuu ii cadyi maxaan qofka ku qiimaynaya maxaan ku dooranaya markaan maxay ka helaa baan u baahnay inaan ugu rido ilaa markhaatigan ilaahay bay weydiinaya qiyaamaha waa markhaatiga ilaahay bay weydiinayaan waa inaan gartaa waxaan wax ku qiimaynayo si aan wax u doorto umma jaahilana ma garata waxay wax ku qiimaysa inay tiraa waa nala reer mooyaane ama waa nala qoys ama waa nala caynkan mooyaane waxaan leenahay marka ammaanadu waa shay asaasiya laakiin waxaa kaloo asaasiya baynu leenahay alcilm waalkafaa'a in manaasishan qiyaadigaa aqoon loo leeyay iyo cilmi iyo hogaamin tusaalayaal baan idin siinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam aan idinka siiya taarikhdiisii mujtamaca la hogaaniyaya dad baa u haysta mujtamacu inuu mujtamac malaa'iga iyo malaa'ig maaha dadka la hogaamiya waa bashar mujtamaca basharkaa maxaa ku jira waxaa ku jira munaafiq waxaa ku jira gaal waxaa ku jira muslim waxaa ku jira taqi waxaa ku jira faasiq waxaa ku jira qur-aanka waxa alfaad ku aragteen oo dhan baa dee ku jira mujtamaca la hogaaminayo maaha inta salaada tukatay saful awalkii aan 5 salaadood ka habsaamin ee wada saalixiinta ilaahay ka cabsan inta maaha inta la hogaaminaya dad baa haysta mujtamacu inuu noocaan noqdo noocaan uu yahay una qof waliba wixiisa ka adigo war nooca maaha mujtamac darajo malaa'iga gaadhay caalamku ma jiro kii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa munaafiqiintu halkaa taagnaayeen joogeen mujtamacu nebigu hogaaminaya yuhuud baa ku jirtay
waayo dawla islaamiya bay ahayd taxta dawla islaamiya yuhuud baa joogtay munaafiqiin baa joogay bal ee waqtiyada qaarkood gaalaa joogtay muslimiin baa joogay abibakar iyo cumar iyo cuثmaan baa joogay mujtamacu intaasu ka kooban yahay la hogaaminaya see loo hogaaminaya waxaan leenahay hogaamintu cilmay u baahan tahay iimaanka ka sokow cilmay u baahan tahay maalan tusaalahan siya munaafiqiinta munaafaqnimadu inkastoo malaha imika siyaasaddaba nifaaqa loo yaqaano nifaaqu waa wax aada u khatar ah suurat albaqara ilaahay markuu mu'miniinta ka warramayo 5 aayadood buu ku sifeeyey gaaladii markii laga warramayna 2 aayadood oo qura lagu sifeeyey warkoodaas ka cad munaafiqiintii markii ilaahay ka warramayay 13 aayadood baa ilaahay kaga hadlay 13 aayadood waayo qadiyadooda waa qadiyad khutuura badan leh qof kulana jira kaana jiro meesha joogo aan kaa maqnayn oo roorayo waa qadiya khutuura midhana munaafiqiintu had iyo goor masaakiinta ma noqdaan masaakiinta had iyo goor muslim ba iska noqdaan hadday islaamaan islaamku iska wada qaataan munaafiqiintu had iyo goor waa kubaraa ulqowmka atadruun akbar munaafiq fi cahdi saxaaba soo maray wuxuu ahaa cabdillaahi ibnu ubay waladii tawallaa kibra akbar munaafiq cahdigii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa maxay cabdillaahi ibnu ubay cabdillaahi ibnu ubay nifaaqa intan leeg maxaa ku kalifay kursuu doonayay sama wogti cabdillahi kursuu doonayo uu arkayay in laga qaaday waayo dhacdaa dhacday oo axadi saxaaba markaasi nebiga uga warramay dhacdada dhacday waxay tahay ghaswati bani lmustaliq qadiyad weyn baa dhacday laakiin anigu aan meel qura u soo noqdo cabdillaahi ibnu ubay ibnu suluul wuxuu ahaa nin ka tirsan ansaarta qabiilkay ka tirsanaayeen khasrajiya ayaan rajaynaya aws iyo khasraj dagaallo badan baa soo maro xarbu bucaathu ugu dambeeyey oo 5 sannadood la isdilayay in yar ka hor intaanu islaamku soo gaadhin mararkuu islaamku soo gaadhayay unbay nabad qaateen ayaa labadii reer heshiiyeen waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in cabdillaahi madax laga dhigo oo suldaan loo doorto oo uu labada reerba isku hogaamiyo cabdillaahi suldaannimadiibu u sharaxnaa dabeetana waxaa loogu tala jiray in loo tolo kharsigii waxaa loo tolayay taajkii iyadoo taajkii cabdillaahi uu socdo ayay bacdi saxaaba madiine yimaadeen oo qoladii bayc alcaqaba luula iyo bayc alcaqaba taaniya dhacdo dabeetana reer madiine islaamkii soo gaadho nebigu muscab ibnu cumayr uu usoo dirayo muscabna uu diintii ku faafiyo dabeetana islaamkii uu xoog u faafayo ilaa hijradii dambe ay dhacdo oo nebigii iyo saxaabadiisii bay soo hijroodeen nebigu wuxuu soo galay baa la yidhaha madiina iyadoo ninkii la odayga ahaye la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubay uu u sharaxaya kursiga madaxtooyada madiina oo markaas si taajka loo toli lahaa ayuu nebigu soo galay dabeetana dadkii islaamkii bay raaceen qadiyaddii baa isbeddeshay alwalaa walbaraagii baa dhan kale u janjeersaday dawla islaamiya baa meeshii ka asaasantay dadkii nebigoodii bay raaceen cabdillaahi colaad buu qaaday ee nebi maxamed kursu kaa qaaday colaaddaas buu qaatay odhanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaa qaaday kursigii dabeetana wuxuu bilaabay cabdillaahi oo aanu marnaba u yaraysan siduu mujtamacan muslimka iyo dawladda islaamiga u dumin lahaa wuxuu bilaabay intaanu soo islaamin saxaaba baa nebiga u yimaadeen waxay dhahen ya rasuulullahi kaalay bal majliskayga soo wacdiyo meeshuu soo maray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi cabdillaahi ibnu ubay oo majlis fadhiyo wuu soo agmaray cabdillahi ibnu ubay baa afku ka xidhay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo leh laa tadburu calayna annaga boodhkayna iyo qurunkiina xagga noola dhaafa buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdii meesha fadhiday buu qur-aan ku akhriyey markuu xoogaa ku akhriyey ayuu wuxuu ku yidhi ijlis fii baytika walaa takshana fii majaalisina gurigaaga fadhiso hanaga imanin majaalista iyo wax ayaga kan waa markii uu weli gaalnimadiisa caddaysanayay laakiin siyaasiyiinta waxaa lagu yaqaanaa kaadhka hore haddii u socon waayo inuu deka labaad la baxo waa wariqa maxruuqa inaad noqotaa waa doqoniimo inaad meel iskaga adkaysato oo dabeetana ilan iyagu mabdiyiin maahe waa maslixiyiine dee maslaxaddu xaggaa u socon weydo hadday xagga kala u soconayso dee waa la istaad raaciyaa xagga kalun baa loo raacaa
sida daraaddeed cabdillaahi gaalnimadii wuxuu arkay in dadkii laga kaxaysto dee meeshii aanay kursigaasi aanu xaggan ka soo noqonaynin dabeetana wuxuu damcay inuu xagga haddaba isu daataraaciyo xaggaa warjiraayo inuu xagga kan islaamnimadiibu iska soo qaatay laakiin maxay noqotay islaamnimadiisu sheeganayay waxa weeyaan walaa walbaraagiisii muu caddaanin sida daraaddeed ghaswatu bani qaynuqaac reer banu qaynuqaac waxaynu naqaanaa inay gabadh muslimada qaawiyeen dabeetana gabadhii nin muslimi uu diriray oo kii qaawiye waxyeelay dabeetana isagii la dilay haluma dagaalu halkii ka bilaabmay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaa soo duushay iyagoo cirdigii qofkii muslimkaa ilaalinaya iyo ninkii la dilay 15 maalmood baa lagu hayay cunaqabatayn hareeraha lagaga wanaagsanaa akhiiran waxay aqbaleen inay isdhiibaan ayay aqbaleen oo xukunka nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u hoggaansanaadaan bacda shahr yani waa bacda shahr min islaami 15 maalmood buu xisaarku soconayay laakiin cabdillaahi markaa intuu islaamka caddaystay bil qura laga soo wareegay gebigiisuba saxaabadaba wuxuu la joogaa maxay waa bil waaxida bisha uu la joogo 15 waxaa socday xisaarkaa socday macnaheedu waxa weeyaan rabshadani intaanay dhicin 15 casho ka hor ayuu ninkani diinta soo qaatay ama uu islaamnimadiisa sheegtay laakiin cabdillaahi mowqifkiisii buu taagan yahay oo ah reer banu qaynuqaac iyo isagu qabiilku ka dhashaa xilfi wada gaashaanbuur horay lahaayeen oo qoladani dee qolada odayada u ahaan jiray bay ahaayeen yuhuudda ahay cabdillaahi islaamnimadiisu dee ismay dhiibine safkan iyo waxaan inuu khalkhaliyaa un bay ahaydeen wuxuu nebiga intuu ku dhegay buu leeyahay axsin fii mawaaliy ii hagaaji u samafal nimankaanu gaashaanbuurta wada nahay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yaro dhagaaday muu rabin inuu aqbalo hadalkiibuu ku celceliyey oo ku celceliyey oo ku celceliyey nebigu ka dayn waayey nebiguna uu ka sii jeestay ilaa iyo markii dambe nebiga ku dhegay halkaa fatxada yare uu leeyahy jeebka waa fatxadan yare khamiiska uu leeyahay halkaas buu nebiga qabtay calayhi salaatu wasalaam cabdillahi ibnu ubay isagoo leh axsin fii mawaaliy nebiguna intuu cadhooday ayuu wuxuu leeyahy waar isii daa buu nebiguna leeyahy ilaa iyo wejiga nebigu calayhi salaatu wasalaam uu madoobaaday si uga cadhaysan ninkana uu leeyahy waar isii daa muu aqbalin way xakarsilnii buu nebigu leeyahy isna kama aqbalin laa wallahi laa ursilik buu leeyahy xataa tuxsina fii mawaaliy ilaahay baa ku dhaartay inaanan ku sii daynaynin ilaa iyo dadkan ii sii dayso nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waa cabdillahi ibnu ubay ba wuxuu leeyahy waa 400 oo nin oo 400 xaasir wa 300 daar 400 oo nin oo yacni hubaysan iyo 300 oo nin oo duruuc waa nimankii buu leeyahay nin madow iyo nin cad bay iga ilaaliyey ayaa doonaysaa maalin qura inaad wadalayso ma ogoliya halaysii daayo anigu waxaan ahay buu leeyahay laakiin markuu qadiyadan leeyahay ma wuxuu iska dhigayaa nin qoladan la socda munaafiqiin yuhuudda maya inni imra'un akhsha dawaa'ir buu leeyahay politically maslaxad baan inoogu jirin buu leeyahay yaa maslaxadda mujtamaca alxumaynin haddii nimankan la laayo rabshada ay ugu badanaysa dagaalada badan iyo caynka inni imra'un akhsha dawaa'ir buu leeyahay anigu waxaan ahay nin dhibaatooyinka dambe iyo cidhibxumada ka baqaye hal la sii daaya buu leeyahay nimankan nebigu calayhi salaatu wasalaam munaafaqan wuu ka aqbalo wuu u sii daayey hadda u fiirso waa cabdillaahi waa 400 oo yuhuuda waa goob dagaal waa mowqifka caynkaasiya wuu aqbalo wuu isaga sii daayey mawaaqiftiisa siyaasigaa baan doonayaa inaan tusiyo iyo haddana sida loo wade loola dhaqmayay waayo qiyaadadu may ahayn un abubakar iyo cumar may maamulayne maca munaafiqiin maca yahuud maca waxaan oo dhan bay qiyaadada islaamiga isku waday sida daraaddeed ghaswatu uxud waa tii la qaatay mowqifa in la dagaalamo oo laga hor tago gaalada waa tii laga hor yimi bartanka markii la marayey uxud in yar loo soo jiro ciidanka muslimiintu marka ay wateenba 1000 qof bay ahaayeen ayuu istaago intuu u khudbaday 300 oo qof buu dib u ceshaday arag ninku siduu sumcadda u leeyahay dadka dee weli badh baa dhegaysanaya 300 oo qof ayuu dib u celiyey 300 oo qof markuu dib u celinayey ma dhabbaayo ra'yigiisii baa la qaadan waayey dadka badh baa waxay leeyihiin markii uu xaggeer madiine gudaheeda joogu ra'yi soo jeediyo ra'yigiisii baa aktariye laga raaco ma dhabbaayo ra'yigu qaadan waaye ma qabo waayo hadduu masalada marka horeba diidanaa dee mu iska hadho muxuu soo doonayay wuxuu rabay balbala fi saf inuu sameeyo marka ay muslimiintu xaaladdu ugu adag tahay inuu jabiyaabuu doonayay waayo haddaanu dagaalka doonayn madiinaba kama soo baxeen oo iska hadhi lahaa laakiin markii horena wuxuu rabay intuu dadka ku soo daray isagii munaafiqiintiisa wuxuu dhabay inay soo raacaan
marka labada ciidan isku soo dhadhawaadaanna oo 3,000 ciidankii gaaladu iyo halkan degan yahay inuu muslimiinta safkooda intuu khalkhal ku rido laba u kala jabiyo dabeetana ay niyad jabaan oo isdhiibaan sida daraadeed markii mowqifkii lagu soo dhawaaday buu 300 oo ciidankii ka mid ah la noqday si uu safka balbal ugu rido ilaahayna waa kale waa fiikum samaacuuna lahum muslimiinta markaanu walaa wal baraa aqeedadiisa xoog u dhisnayn mafhuumkiisa siyaasiga markaanu cadayn markuu qofka iska de qof wanaagsan moodayaanu waxa niyada ugu jiro ogeyn waxa laga yaabaa inuu ninka weyni sax weeyaan ama sabab kale inuu dhageysto markaas ilaahay leeyahay wa fiikum samaacuun waxa idinku jira yahuudan iyo munaafiqiinta iyo waxa kan qaar u dhakraaricinayo waxay sheegayaan dhageysanaya nabigu ninkan mowqifkiisa uu ogaayay wuxuu ilaalinaya mujtamaca kan waayo ilaa xad buu gaadhsiiyey laba taa'ifo oo banu xaarat من الأوس يا بنو سلمة من الخزرج حتى أي نقن قاعدين يجونا لبكوا هذا الصحابة كم ده أوس يا خزرج بكم ده أهي ينا كوش سكتي إن الدجال كسكان نقدان وإلى القرآن كوش يالي إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وحنا نوح السميني إنه بلبلة سفكا كرده نك عين كاسي iskama wada dhigayn nin islaamka nacib ee wuxuu xaga kalena nin iska dhigay inuu islaamka u gargaarayo wakaasoo arrimo cajababa laga sheega ibn hisham baa wuxuu leeyahay munaafiqa kan khadaaciisa falxumadeeda buu yiri sidoo u dhaqmi jiray marka uu nabigu maalinta jimca khudbadaynayo ayuu nabiga hortiibu istaagi jiray la yiri salaada jimce nabiga hortii ayuu istaagi jiray markaas wuxuu oran jiray hada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam bayna adhurikum akramakum allah wa a'azza bikum فانصروه وعزروه واسمعوا له واطيعوه واركن يبو يراهدا وا الهي الرسول كيسي او الهي دinku gargaaray oo waa kan ee u gargaara oo u hiiliya oo waa kaasoo deetana uu fadhiisan jiray waa khudbada jimcaynta nabigu jeedin buu inta ka sii hor jeediya oo leeyahay nabiga ha loo hiili ha loo gargaar ilaahay bay deetana uu fadhiistaa leey ghazwat uhud markuu wixii sameeyay ee uu tagay ayaa jimcihii dambe muslimku soo yimaadeen ابن هشام وحلي جمعيد موسى سوتها قال تنفع الحمديس يقول هذا رسول الله أعزكم الله به يقول ويا نكن الدرس سياسي يوم الرباين وعياره مرة باين بالشدة كبحه ولي وحو الربا طوب كا إسلام لماذا ينسيته وحوها اتصالات بدن لله قال ذا يهودية وحكا وهو كقرآن كتل ماما ينو لها حتى لئن خرجتم لنخرجن معكم وهذا سعدواك الشيء محانو قد شيء داو ninka caynkaasiya maalintuu wararka sheegay ee la akhrijanna al'azza minha la dallow sheegay ee wiilkii yaraa Zayd ibn Arqam warkiisii adeerkii u sheegay adeerkiina nabiga u soo sheegay alayhi salaatu wasalaam ee akhbaartiisii ay cadaatay ee odayadii madana idhaan lacala wiilka yar baan maasaani wuxuu maqlaynaa ninka weyne waxa kuma hadal ee ilaahay quraanka soo dejiyay wiilka yar warkiisa run lagu sheegayo oo la sheegay Abdullah inuu munaafiq yahay waxa kale oo dhan sameeyay ayuu Umar yiri ilaahay rasuulkiisiyo مر عباد بن بشر فليقتله عباد بن بشر كان هدي له فربويري هل هدي لكن نبي عليه الصلاة والسلام حكيري فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هذا أورندو تا نبي عمر هدا يدتكو هدا وكشة كيستان يعني قضية سياسية والنضوج سياسية ما هذا يلي دون تابو النبي يقول يا عمر هدا يدتكو هدا وكشة كيستان محمد أصحابتي سولايا isagoo koogin munaafiqay ayuu maslaxa ka weyn u ilaalinayay inaanu dilin loo reebay sidatan tabatana nabigu farsamo kale uu helo dadka ugu yeedhbu inay guuraan waa la raray dadkii habeenkii oo dhan bay socdeen maalintii dambe oo dhan bay socdeen waagi dambe u bari naftiiba iyagoo haysato meel dajiyo waa la wada daato waa la seexday ilaa dadka maskaxdoodiiba wixii ka maydhmeen tabatana ilaahay quraan soo dejiyay wararkan kaga waramay qadiyadan uga jeedaa maxay waa dambe markuu فضيحته عبد الله بن أبي عضادين أيه وحلي ابن هشام النبي وحكي عمر كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلت يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف كورن بوكو عمر أما أرنك السداد وأرك سمانت عبد الله وما لندن بود منافق نمدي سي عضاتي ورقي برقي هوري ويرى حق لنا وقادين ولا يري وار منافق يوكب حداتك الويري هدان مالنتي ابو نبي ويري ديلي لها dad baa maanta maalinta la caroon lahaa ama qabiila ku raacmo wax kale dad baa la caroon lahaa laakiin maanta buu wala amartu hal yawma biqatl la qatalatu kuwi maalinta u caroon lahaa maanta hadaan idhaahdo dila way dili lahaayeen
markaasuu cumar yidhi qad wallahi calimtu lamru rasuuli llahi sala allahu alay wasalam acdamu baraka min amri waxaan uga jeedaa qiyaadadu mutatallabaat badan bay rabtaa mujtamac baa lagaa rabaa inaad hogaamiso jaaliyad yar masaajid organisation yar inka weyn dawlad mujtamaca waa inaad ku tala gashaa mujtamac malaa'iga inaanad hogaaminayn ee waa inuu qofka qaa'idkiiyo qof wadi kara munaafaqaasi iyo yahuudiga iyo gaalka iyo dadka muslimiinta isku wadi kara mabda waa inuu mabda islaamiya yahay laakiin qofka qaa'idka iyo jajabnidiisa iyo waxa looga baahan yahay ma aha oo keliya ee wadaad baanahay ee waxa looga baahan yahay farsamada inuu garanayo administrationkiisa iyo maamulkiisa iyo wixiisa inuu garanayo waxaan jeclay waa la ii digo warqad baa laysiiyey mala kaarhkii casaan baa harhsane baryaha bakaadh cas baa la taagayay waxaan jeclay inaan kusoo koobo weedh ah macaalim fi siyaasati lumma haddaynu dhibaynu tilmaamayna waxaynu sheegnay nooc min alcaqabaat ina hor yaalla waxaynu u baahannahay macaalimteennu inay irtikaasto qofka muslimkaa inaynu fahamsiino kuu yahay cidda u hiilinaya iyo cidda u gargaaraya haaniyan inaynu garadsiino ummadda muslimkii inay jamaaca la-aan noolaan karin aanay jamaaca ka maarmin mafhuumkaasi idaarigaa ee maamulka le ee jamaacad inaynu ku abuuro haalian inaynu dadka u diyaar garayno siday qiyaada u noqon kari lahaayeen ummad dad hogaamiya ummana marka ummad la yidhaahdana nooc waliba wuu ku jiri doonaa oo ma helay siduu nin yaroo wada weysaysato salaatuleilka tukatee waxaad hogaamin doontaa un dad munaafiqiin iyo nooc walba leh jamaacadu nebigu hogaaminaynana noocaasay ahayd macalasaf waxaan see dareemayaa in badan inaynu kuraasi iska fuullay jaaliyaad iyo meelo badan leh inagoo aan saa dadka loo hogaamiyaba waxba ka aqoon hogaamintuse waxay u baahan tahay mawaahib way leedahay ilaahay uu bixiyo oo qofka la siiyo laakiin waxay kaloo leedahay ashyaa muktasab oo la barto oo la fahmi karo o la garan karo min alkitaabi wasunna haddii si fiican loo daraaseeyo waa laga fahmi karaa culumta basharkuna tajribo badan bay leedahay waxaan kusoo koobayaa markaasi mutatallabaadka qiyaadigaana waa inaynan ilaabin mujtamacana waa inaynu ku talagallaa mujtamac inuu yahay wax waliba ku jiri karaan ka loo baahanya in la hogaamiyo ee malaa'igana aad hogaaminaynin wallahu aclam wabillahi tawfiiq جزا الله خيرا الشيخ مصطفى محاضرة قيم كاهيد ونوسو جديد عوان كذنها معالم في سياسة الأمة الإسلامية وحن إن شاء الله تعالى مركان إيماننا دور كأسئلة أما قيبه سؤالها كساب سنة وحا سؤال شكرا كساب سنة الشيخ مصطفى waxaad nooga hadashaa had iyo goor ala siyaasadda iyo maaragtay arrimaha la xiriira haddaba ma jiraan buu leeyahay sheekh mustafa kutub aan kaa dhaxalno isla markaana aan ka akhrisano mawaadiicda aad nooga hadashay ee maaragtay aad noo falanqaysay hadday jiraan se xaggeen ka heli karnaa iyo maktabadeen akhi fillaah haddaad kutub doonayso culamada iyo dadka muslimiinta ee mufakiriintii wax aada u badan bay qoreen laakiin himamkeenna yar iyo waxaynu akhriyayno ma aha qadiyaddani qadiyad maanta miskiinkan idin hor fadhiya u baahan inay mufaker ka dhigtaan oo tidhahdaan waxa aad ka hadasho maad qortay waxaan aan sheegaa wax iyagu sheegaan culamada iyo mufakiriinta muslimiinta bacdi alkutaybaat agtiina ka buuxa un baan akhriyaa wax ka badan maan sheego waxaan markaa idin tilmaamayaa war majaalka siyaasiga ee islaamigii waa uu faqiir ahaa waa jirtay laakiin maanta aad buu usoo kobcaya waanu leeyahay ruwaaddiisa iyo mufakiriintiisa iyo ciddiisa badana wax ka qora ay maktaba islaamiya alla xidhiidhana jaanibkaasi athaqaafa waliba qismiga dee ku saabsisan human scienceska ama waxyaabaha kan adabka iyo waxaan basharka ama iqtisaad ha noqdo ama siyaasa ha noqdo ama yani waxaan isku xidhan had iyo goore bini aadamka lagu hagaa war waa badantay kitaabadiisu iyo miskiinka kitaaba ugama baahnid inay maktabadda islaamiga ku noqda wallahu aclam جزا الله خيرا